قرن بلي برمادي حسن شيخ عدكاغا كبيري برمادي حسن شيخ عركالي هبح مانشو برمادي حسن شيخ إنو بدلوها بين الدرين برمادي حسن شيخ برمادي حسن شيخ والدور تبرارو برمادي حسن شيخ وسيا بوغادي برمادي حسن شيخ عكو الدور تبرارو برمادي حسن شيخ وسيا بوغادي برمادي حسن شيخ أنبيان شددو وعاوة وأي تاريخ دوتاي سيدي طبعاً بيش اللحاد أما جون سنتك لبدا كوني لباتنك كدا عيسى دلكن سويسرلاند خاصة مقالة سويرخ هدبا وحان كفران دونا آيات حين كفر دونا آياتها قرآن كريم إيو كلمة وعية وحان قرالك كسر دوينيا أو إنو قرآن شيخ أويس عمر حايو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم خير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم خير لكم وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaalo munaasabadan caawa ujeedan quruxda badan ee Soomaaliyeed ee degan wadankan Switzerland ay ka soo qayb galeen oo caawa aan lagu kala maqnayn odayaalo dhalinyaro waxgarad culumo haweenka Soomaaliyeed oo lafdhabar u ummadda Soomaaliyeed waxay mahaddeedu u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo geliyo munaasabadan intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalayaalo bulshada Soomaaliyeed ee degan wadankan Switzerland gaar ahaan gobolka Zurich waxa xasuustayda ka doonin dhalinyaradii iyo gabdhihii iyo odayaashii iyo dadkii waxgaradka ahay oo munaasabadan igu garab istaagay oo aan abaalkooda aan weliga hilmaami doonin walaalayaalo qof kaligii waxba qaban ma karo qof walba wuxuu u baahan yahay inuu garab ka helo bulshada Soomaaliyeed waxaana deeqo dawladnimo haddii dawladnimada aan garab istaagno sida ay garab istaagteen oo munaasabadan ay u qurxiseen oo kale ayay dawladnimada Soomaaliyeed u qurxoonaanaysaa walaalayaal waxaan rabaa oo kale halkaan inaan uga mahad celiyo dadka wadamada Yurub nooga imaada munaasabadan darteed oo dawladda Soomaaliya madaxweynaha cusub ra'iisul wasaaraha cusub gudoonka baarlamaanka loogu duceynayo loogu hambalyeeynayo iyo dadka ka imaaday safaaradda Soomaaliya oo koow ka yahay qunsulka Saalax oo laba ka yahay xogayaha Cabdiqaadir Barqadle waa kuma santiin walaalayaal munaasabadan waqtiga geliseen juhdiga geliseen safarka u soo gasheen inta soo dhan waa dawladnimo jacayl hilmaan hadal kuma jiro waxaan rabaa halkaan inuu uga mahad celiyo culimada Soomaaliyeed ee degan wadanka Switzerland culimada
oo ay hogaaminayaan Sheekh Sacad ina Kaarshe Shiyaxye iyo culimo badan oo magacooda halkaan aana ku xusi karin oo halkaan fadhiya dhamaantood waxaan rabaa si khaas ah inaan ayagana ugu mahad celiyo odayaasha ka imaaday gobolada iyo jaaliyadaha dhammaan Switzerland hogaamiyaashooda oo caawa halkaan ku sugan oo munaasabadan quruxda badan ayagana kaalintooda ka qaatay dowladnimada Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed waxa joogo dad iga khibrad badan iga aqoon badan mudan makrofankan caaw inay ka hadlaan ana nasiib u yeesho mooyaane dadkaas ayaana ka hadli doono munaasabada quruxdeeda iyo muxuu ahaa alla kuma samdiide madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhdiisa iyo dowladnimada iyo halka loo socdo iyo halka laga imaaday dadkeediya joogo ayagaana ka hadli doonaan caaw waxaan ka codsanayaa bulshada inay ilaaliyaan borotokoolka munaasabada khudbadaha la dhageysto la ixtiraamo insha Allah billahi kariim waxaan rajaynayaa munaasabadan inay muddo koobaad iyo muddo ugu dambeysay ay sanad doonin munaasabada badan ay nooga damay doonaan dowladnimada Soomaaliyana ha waarto intaas kadib walaalayaal waxa jooga halkaan caawa oo ku sugan wariyaashii Soomaaliyeed koodii ugu saameynta badnaa waxa kamid ah Xasan Muuse Sabri waxa kamid ah Cabdiqani Cali Dalmar waxa kamid ah Cabdirashiid Guure waxaan leeyahay wariyaasha laantooda waxba ma dhaqaaqaan horay loo socdo waxaan rabaa halkaan ayagana inaan uga mahad celiyo DJ-yaasha Nageeye iyo Faad oo ayagana munaasabadan dhalinyarada caaw inay si fiican uga camiraan halkaan waqti iyo juhdi badan soo galiyay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baada fanaaniinta Soomaaliyeed oo ayagana caaw halkaan ku sugan waxaan rabaa daadiyaasha munaasabada waqtigan ay ugu tala galeen munaasabada xayndaabkeeda in borotokool ahaan maadaama la soo daahay in lagu ilaaliyo oo laga bixin munaasabadu caawa waa hambalyeyn farxad iyo duco khudbada dheer insha Allah waqtigeedan gaari doonaa waa xasuus reeb waa idin jecelahay walaalay aad iyo aad u mahadsantiin qalbiga ku qorantiin sharafukurkiina Allah sharafukum dhammaan marti sharafta kala timid gobolada dalka iyo wadamada dariska la ay Switzerland waxa ay wanaagsantiin sidoo kale waxaan rabaa markaa inaan u mahad celiyo walaalkay xidig iyo tiimkii ragga iyo dumarka runtii ummad Soomaaliyeed matalaysay oo noo qabtay xafladda sharafta leh waxaan rabaa inaan dhawaa mahadsantiin ilaahay ajirkeeda adduun iyo aakhiro hal waafajiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan ku daro ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa kaalintoodu waa duco iyo garab istaag buuxa oo loo muujiyo Professor Xasan Sheekh Maxamuud ha noolaado sidoo kale waxaan garabnaa shalay hadduu tanaasul iyo dulqaad uu muujinayo maanta waxaan garabnaa inuu sharciga shaqeeyo dowladnimada ay shaqeyso nin kasta oo sistemka dowliga ka leexdana gacan biraan ugu qabto marka waa mahadsantiin ballanteenu waa Soomaaliya heshiis ah dunida heshiis ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والسلام على رسول الله لما dadka ka soo qaybgalay xafladda caawa inta maasayaayo dowladda cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hogaaminayo Alxaaji Xasan Sheekh Maxamuud mudane marka hore dhammaan musharaxda kale waxaan kaloo halkan ka salaamayaa musharaxda qaaska ah ee ka yimid gobolada dalka iyo dibaddiisa waxaan halkaas u jeedinayaa waxaa la yidhaahdaa guddiga dhabanqaadada ee magaalada dowladda uu hogaaminayo gudoomiye kadib howlkii wanaagsaneed ay soo qabteen waxaan u mahad celinaynaa dhammaan hadalka ahaan ma furso waxay halkaa hadal ma dhino dubaaba ma dhino sheegi ma dhino waxaa laydinka rabaa dowladda Soomaaliyeed cadaalada laydinka rabaa adinka waxaa laydinka rabaa Soomaalida meel walba joogtiin inaad adinkana midnimo muujisiin markaad adinka midnimada ka shaqaysiin ay Soomaaliyada cadaaladdeeda imaanaysaa saas ogaada marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mahadoo iskale Allah subxaanahu wa tacaala
oo halkan ugu kulmiyey xafladan qiimaha leh oo quruxda badan caawa waxaan kaloo mahad celinayaa guddigii soo qabanqaabiyey oo xafladan quruxda badan soo qabanqaabiyey walaalkay xidib iyo tiimkiisii runtii oo ka soo shaqeeyey runtii xaflad aad iyo aad u qurux badan ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin soomaaliya waxay soo martay qodobkii sano ugu dambeysay dibudhiskii soomaaliyana weli wuu socdaa dowlad walba timaadaan waxay ku daraysay qayb iyo kaalin weyn waxaan rajaynaynaa dowladdan cusub ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud inay noqon doonto dowladdii gaarsiin lahayd ummadda soomaaliyeed bashbash iyo barwaaqo ayna kala mid dhigi lahayd waddamada kale ee waddankeena soomaaliya ee deriska laha waxaan rajaynayaa dhammaanteen shacabka soomaaliyeed inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogtada dhammaanteen inaanu garab istaagno oonan la shaqayno oo aanan maaragtay aynan marnaba aynan dib uga dhigin kaalinteeda waxaan si taasoo kale ayadana aan u rajaynayaa xukuumadda cusub oo ra-iisul wasaaraha cusub ra-isul wasaare xamse soo dhisi doono inay noqon doonto xukuumad waddanka gaarsiisa horumar iyo barwaaqo oo runtiina hawlihii qabyada ahaa noo dhammaystirta waxaan kaloo jeclaa in halkan uga mahad celiyo ra-iisul wasaarihii xilgaarsiinta ra-iisul wasaare rooble oo runtii isaguna hawl muhiima soo qabtay dhammaan waxaan leenahay hawl wanaagsan aan la qabtay horey ha loo soo socdo ballanteenu waxa waaye soomaali heshiis ah adduunkana heshiis lah waa maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم وضري علي مروين مركور عن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبة انتو بدن dadkii ugu horeeya sheegay aniga wax badan ku dari ma laakiin maadaama horta ma lay maqlaa ama hasantii waxaan rabaa inaan hal iyo laba qodob aan ka idhaahdo waxaan u dabaaldegaynaa nidaam cusub dowlad cusub madaxweyne cusub waxa ugu muhiimsan oo madaxweyne aan ka baryayna waa cadaalad haddaan dalku uusan cadaalad helin wax hagaagaya malaha marka waxaan malaynayaa xasan sabriina waa isugaa waqti badan ma haysto inaan wax badan hadlana uma istaagin laakiin waxaan yidhi maadaama dhallinyaradu meesha ku badantaa codkooda ku hadal dadkii kale taytalo kale ku hadlaayeen laakiin aniga kan dhallinyaradan ku hadlaa marka hadda waxaan rajaynaa marka dambe inaan zuro ka gudbo oo aan u gudbo maxaa la yidhahdaa swiiska dhan marka waa mahadsantihiin markii labaad ay ka soo qayb galayaan runtii markaad u fiirsato Geneva meel dhow ma aha waa xuduudka Faransiiska waa qoraxda meesha u dhacdo Sangaalana qoraxda meesha ka soo baxdo inta ay soo socon karaan safaaradda raggaas madaxdeeda ah waa garan kartaan waa rag dhalinyaro ah usbuucii horena aan isku aragnay Soomaali jacayl iyo xilkii magaca Soomaalida ay u hayeen iyagoo taageeraya dowladnimadii ayay meel walba nala taagan yihiin mar labaad waxaan dhihi lahaa dhalinyaradan jiilka soo koraya ah oo mas-uuliyiintii berri ah waxaan jeclaan lahaa maadaama waqtigoodii ay usbuucii labaad ay xafladii xasan sheekh maxamuud ay u yimaadeen waxaan leeyahay min fadlikum hal mar sacabkii dhisiya ha loo sacbiyo teed kale waxaan rabaa inaan mahad gaara aan u celiyo xidig oo ah ninka isoo wacay ama ninka odayga ninkaas yar oo mas-uulka ah oo isoo wacay oo meeshan ka jeediyey hadal aad iyo aad qiimo u leh ka jeediyey meeshan isagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa kaloo mahad mudan intii ka soo qayb gashay ee kala shaqaysay juhdiga geeyey maalin iyo habeen u soo jeeday in xafladan quruxda badan ay dhacdana waxaan leeyahay idinkana waa mahadsantihiin markaan usoo laabtay marka muhiimadda meeshan aan isugu nimid waxay tahay hambalyo taageero iyo duco horaan u sheegnay maxaa yidhahdaa nin odaya hadday wiil ka socdo maxaa yidhahdaa jaaliyadda huseen inuu ahaan u marayna wuxuu yidhi aqal
aqaltii la'aan keligiis ma taagnaado waa runtii dowladda Soomaaliya gumaystihii kadib waxaan helnay dowlad oo qorasugiib ahayd oo rayd ahayd kadibna xukun militari ah ayaa 20 sano ayaa wadankii haddana soo maray kadib wadankii waa oo burburay wadanka hadduu burburana micnaheedu waxay tahay guri dumay ayay la mid tahay gurigaas dumay haddaba waxaa loo baahan yahay in la dhiso maasha allah waxaa ku guulaystay doorashadii hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu noqonayaa aqalkaas ninkii dhisi lahaa oo taagi lahaa oo injineerka ka ah runtiina xasan sheekh waagii la magacaabay oo madaxweynimadu uu ku guulaystay waxaad arkaysaa isla markii inuu magacaabay dhibaatada Soomaaliya ka jirta oo sida abaaraha oo kale isla markii uu magacaabay ergeyga gaarka ah ee abaaraha ayuu magacaabay isagoo baydhabo tegey oo la fariistay dadkii Soomaalida ah oo soo barakacay oo tabaalisna ayuu la fariistay xasan sheekh intaas waxaa laga helaa wuxuu isoo xasuusiyey Mahatma Gandhi ninka isoo xasuusiyey oo la fariisan jiray dadka masaakiinta ah dadka agoonta ah la fariisan jiray marka xasan sheekh keligii ma ahan waxaa kaloo meesha ugu hambaliyaynaynaa labada aqal Soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare waxaan kaloo u mahadcelinaynaa aan u hambaliyaynaynaa leeyahay ra'iisul wasaaraha oo cusub teeda kalena yaan iloobin xisaabta lagu daro ninkii nabadda intaa soo gaarsiiyey oo suurtageliyey in Soomaaliya si sharaf leh qorisu dhiibka isugu dhiibo ninkii yidhaahdo ra'iisul wasaare Rooble oo muujiyey karti iyo Soomaalinimo muujiyey marka mar labaad waxaan leeyahay xasan sheekh good start uu sameeyey good start waxaa la yidhahdaa bilow wanaagsan ayuu sameeyey laakiin waxaa ogaataan madaxweynaha ismiiska ayaa yaqaan hadda inta qaana ma laha hawshan way socotaa sababtu maxay tahay shicibka ayagaa wax qabsaday warshadaha ayagaa shaqeeya wasaaradaha ayagaa shaqeeya xasan sheekh wasaaradda caafimaadka wasiir uma ahan wasaaradda waxbarashada uma ahan wasiir wasaaradda gaashaandhigga wasiir uma ahan xamsa ra'iisul wasaaraha markuu xukuumaddu soo dhistay wuxuu dhammaystiri doonaa ilaalintuu dhammaystiri doonaa kadib xukuumadda ayaa laga rabaa iyo shacabka Soomaaliyeed in qof walba uu xil isu saaro sidii wadankaas loo badbaadin lahaa xasan sheekh keligiis wax ku dhisi karo laakiin waxaan leeyahay nin xilqaad eedqaad far keligeedana fool ma dhaqo mar kale waxaan idin leeyahay Soomaaliya xasan sheekh haguulaysto badan leh ee aan u dabaaldegayno madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan wajiyada quruxda badan la daawado dhammaan marka sharafta meel kasta ka kala timid daafaha diinna waan salaamayaa salaamka bacdi waxaan caawa fursad mar labaad u helay gabay aan u tiriyey madaxweynahayga qiimaha badan leh 2012 waa markii xasan sheekh maxamuud oo doortay caawana waa madaxweynihii tobanaad markaasna uu ahaa madaxweynihii sideedaad aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku bilaabayaa madaxweyne duca iyo hambali iyo salaan ubax duuban oo qoyan kuu soo dirnay hool aniga iyo dad ila jira deegaan ku wada nool iswiis dhacalladeediyo ku nool dibadaha hambali iyo salaan baa kuu soo dirnay hool dushan malab ku sidataa dadkuna ku wada door dadkuna ku wada raac ku wada durbaantumi wax ku diidan lama arag daacad iyo wadaninimo ayaa lagu doortay aqoontaada durugsan dadka ugu nasteexay noogu deeq waxbarashada jahligana ha kabarbo kuwa duurka kala galay dib isugu soo celi waxaan kaa codsanayaa wiilasheena Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan daafaha dunida meel kasta ay joogaan inaad dalkooda hooyo aad dib ugu celiso madaxweyne qaasatan dhalinyaradii la geeyay Eritrea ayaan kaa codsanayaa waxaan leeyahay kuwa duurka kala galay dib isugu soo celi kuwa dirsanaa jiray dib u wada heshiisiin midka daacad qaran wada wax isdaawamarsiinaynin
fursado kugu nasteexay aad iyo aad baan waxay leeyahay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaan diiran oo kal iyo laaba ka soo go'day welibana ay farxad iyo reereyn ku dhahan yihiin u soo gudbinaya dhammaan inta meesha joogta marti sharafka ka soo qaybgalayaasha qabanqaabiyaasha xafladda oo uu ugu horeeyo kabtanna u yahay mudane Siciid Cali Xidig alias kabtan Xidig kooxda wararka iyo warbaahinta iyo sawir-qaadayaasha kooxaha fanka iyo weliba inta hadhow warbaahinta ka daawan doonta intaas kadib anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waqtiga la dhowraya ayaan jeclaystay inaan soo gudbiyo hadal kooban oo isugu jira hambalyayn dardaaran iyo duco ugu horrayntii waxaan halkan ugu hambalyaynayaa una bogaadinayaa kow madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud labo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo ra'iisul wasaaraha cusub mudane xamse cabdi barre mudane madaxweyne waxaad ilaahay mahadii nasiib u yeelatay in mar labaad lagu doorto madaxweynaha Soomaaliya waxaadna haysataa fursad dahabi ah oo aad kaga leexan kartid dariiqii dhalanteedka ahaa ee lagu socday ilaa hadda in ka badan 30 sano ayay Soomaalidu la'dahay dawlad qarameed oo awood leh oo dalka idil ka talisa sidoo kale laga soo bilaabo shirkii Carta Djibouti ee 2000 waxa dalka ka shaqeeyay waxa dawladda ku saleysan nidaamka qabaliga ah ee 4.5 sidoo kale waa dawladda u shaqeeyay sida shirkadaha internetka kale sababtoo ah waa yaani meel ay ka muuqdaan mid waa online yaani shirkaduhu waxaan noqonay dalka kaliya ee adduunka ee dawladdiisu tahay online haddaba mudane madaxweyne sideedaba dawlad online ahi ma dhisi karto mana ka gaarsiin karto qarannimo qaran waxaa dhisa dawlad dhista ama dhisi kara waa shacabkiisa dawlad qarameed dhisideeduna waa arrin u taal keliya shacabka Soomaaliyeed shisheeye wuxuu kugu caawin karaa keliya deeqaha dhaqaalaha nidaamka dawliga ah waxyaalo badan buu yaani kugu tabaruci karaa laakiin waxa ka horeeya oo saliya baar u ah Soomaalidu markii hore ay dib boorka uga jafto haybtoodii qarannimo yaani national identity markaas ay dhistaan qalfoofka haykalka kaabadaha iyo cududda aysan shisheeyuhu ku dhisi karin mudane madaxweyne waxay shacabka Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ee quusta taagani ka rajeynayaan inaad ku dhaqaaqdid dib u dhiska aqalka ama qasriga Soomaalida oo aan ka wada dawlad qarameed oo baaxadiisu leedahay 337,657 kiiloomitir oo Afrikiisa arrinta dib u dhiska qaranku uma baahna taakulo gargaar iyo maalgelin shisheeye dudumooyinka aad aragteen xoogooda iyo balaarkooda waxaa dhisa oo sameeya xayayaanka loo yaqaano aboorka oo waa garanaysaa boobaraya waxaana uu leeyahay aboorku laba sifo oo sifada koowaad waxa weeye aboorku wuxuu dudumadiisa ku dhisaa keliya candhuufadiisa oo uma baahna beesha cayayaanka iyo xayawaanada iyo waxaas oo keliya candhuufadiisa ku dhisaa labo aboorku habeenkii ayuu dudumaha dhisaa ugu dambaysii waxaan alla kaaga baryahayaa inaad noqotid injineerkii koowaad iyo fuundigii koowaad ee dib u dhiska qasriga Soomaaliyeed mudane madaxweyne haddaad arrinta dib u dhiska dalka ku dhaqaaqdid waxaad taariikhda ka gelaysaa baal dahaba oo sida
hogaamiyihii dalka turkiga ee la oran jiray mustafa ataturk ayaad adna waxaad noqon doontaa xasan ata soomaali wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله نقص عسومي حفلتنا شرفت له مدحوينا حسن الشيخ محمود لقول تاجر آيات بنقول فرح سناي وأنا دي السلامة وربنا يقوم بدنا أنا جو كهلا مجا جليد كنتون أرجو مركب ولا الله شرفت له نسودوي آيات بما ستين بسم الله الرحمن الرحيم نهلكم وعنك السلامة يا دمان kasoo qaybgalaasha xafladda caawa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa aan ugu mahad celinayaa dhammaan guddigii qabaqaabiyey xafladdan quruxda badan leh caawa aad arkaysaan runtii waxaa galashay juhdi badan iyo waqti badan dhallinyaradii noo qabaqaabiyeen oo noo sameeyeen aad iyo aad u mahadsan yihiin insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha madaxda safaaradda haweenka dhalinyarada odayaasha iyo dhammaan bahda saxaafaddaba dhammaan inta kasoo qayb gasha caawa aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin intaa kadib runtii annaga jaaliyadda luusaan aan nahay runtii aad aan uga soo qayb galna caawa waxaana garab istaagannaa ama aan taageeraynaa madaxweynaha tobanaad mudane xasan sheekh maxamuud runtii sidaad dareemaysaan dalkii doorasho ayaa ka dhacday doorashadaasna runtii waxaa inoo sahlay insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo labadeena aqalka hoose baarlamaanka iyo aqalka sare ee baarlamaanka runtii doorashada markay dhicaysay dalka gudihiisa ayaan ku sugnay aniga aan joogay runtii shacabka Soomaaliyeed waxay baahi badan u qabeen isbedel dalka inuu ka dhaco isbedelkaas dhacay runtii waxa ku soo baxay oo nasiib ku helay mudane xasan sheekh maxamuud oo noqday madaxweynihii labaad oo fursad helay mar labaad inuu shacabkiisa Soomaaliyeed hogaamiyo waxaan ugu rajaynaynaa madaxweynaha inuu insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo 4 sano soo socoto nasamata bixiyo oo runtii dalkan meel fog oo gaarsiino insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waan rajaynaynaa waxa kaloo madaxweynaha in kaaga baahan yahay baahi badan oo uu qabaa inaad garab istaagtaan baahi badan ayuu qabaa inaad garab istaagtaan runtii haddii aan garab istaagno dal iyo dibadba madaxweynaha tilaabooyinka uu qaadayo waxay noqonayaan tilaabooyin runtii muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed waxaan kaloo halkaan fariin ugu dirayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan dhahayaa mudane madaxweyne dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la shaqaaleysiiyo shaqo abuur loo sameeyo wax badanna loo qabtay u baahan yihiin mudane madaxweyne waxaan ka rajaynaynaa dhalinyaro badan oo waxaan soo arkay shaqo la'aan ayaan soo arkay waxay u baahan yihiin dhalinyaradaasna marka garab istaag ay u baahan yihiin sida ugu dhaqsiya badan waxaan ka codsanayaa xukuumadda aad soo dhisaysin inay noqoto xukuumad tayo leh oo shacabka Soomaaliyeed runtii samata bixiso wax yar oo tixi halkan ka tiranaya ama hees hore loo qaaday oo ah aqaltii laantiis kaligiis ma taagme haddii aan iskaashanin tabar yeelamayne ka tashada cadaabu isku tiirsanaada aad iyo aad ay umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deeq uu maasan yahay sida uu noogu soo koobay khudbadda waxa aan maaragtay isugu nimid meeshaan waxay tahay mulkiga ilaaha bixiyo qofuu ilaahay mulkiga u dhiibay waxaana laga rabana waxay tahay inaan ugu ducayno in ilaahay oo la garab galo isu imaadinka la soo imaanaya iyo waa un iska farax laakiin waxa la rabo waxay tahay in ilaahay ninkaas u fududeeyo hawsha oo wado haddaan loo ducaynin sidii maaragtay iska ahaanaysaa marka qof kasto niyo wanaagsan ha ugu duceeyo in ilaahay dhibka Soomaalida ha inuu ilaahay ka bixiyo abaarta jirta inuu ilaahay ka bixiyo cadawga nagu soo jeeda ilaahay inuu naga jeediyo intaas waa inta la iska rabo waqtigiina waa dhow yahay qof kasto ilaahay asaga inuu isku xirnaadaan waqtigii maqribka soo dhow in maaragtay saan meeshaan u joognaan cayaar ugu jirno in waqtigii nalaga rabin aan hilmaanno ma marka qof kastana ha xasuusnaado taas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ka weyn cid kastoo weyn ilaahay baa mahad oo dhan leh
ammaanna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa iska leh ammaan oo dhan oon la kala reebin nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam iska leh walaalayaal farriin ayaan anigu wadaa midi waxay ku socotaa madaxweynaha iyo dowladda cusub ee la doortay kun farriimood baa loo diray kun dardaarnamood baa loo diray laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala mid buu ummadda ka doonayaa inay nimankaas ku dhaqmaan waa aayaddii qur-aanka uu akhriyey sheekhu inay toosnaadaan dadku oo cadaalad dadka ku dhaqo وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تا أنيقا إيقالسي مهمسن تا الله درايو مدحدو وحوية تا أمد الله درايو أمد هذا ما أنت مقليسا أمد ما أنت هذا يدقيسنيسا أمد فرين تنقارد دونتو إيقو إيقا علمي عقل ببضان لكن فرين إلهي سبحانه وتعالى إنه أقصر دي بالرسوشو ولا بوجهده وجهده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني إنس أمان أبورين إني عابدان مويه ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون مدونا أنا إني وحسيا ملكنا يقبطان إلهي سبحانه وتعالى وكغني مركا أنت آين عبادة أجرنو إلهي أدى عدة أجرنو أيين سجى أجرنا ujeedada labaad waxa weeye istikhlaaf al-ard inaynu dhulkan khaliifo ka noqono dad wanaajiyo ka noqono dad qurxiyo ka noqono dad ku dhaqan oo ku dhala oo ku dhisma ku noqono taana waxaan ku noqon karnaa haddaynu saddex qodob aynu hagaajino inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xarigiisa aynu ku xidhnaano yaa ayuha alladina aamanu udkhuluu fi silmi kaafa dadka ilaahay rumeeyow islaamnimadka wada gala markaad masaajidka joogtaan markaad xaflad qabanaysaan markaad xukunka haysaan markaad dadka kala xukumaysaan marka aad xaas noqotaan markaad waalid noqotaan islaamka ku dhaqma qodobka labaad ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga doonaya waxa weeye inaynu inagu isu run sheegno intaynaan cid ka doonin inaynu cadaalad samayso oo ayna kala xukunto oo ayna wanaajiso oo wax inoo soo dhiciso inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hadaan naftaada bedelin oo adigu taada ka soo bixin oo aanad toosnaan adigana ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuma bedelayo waa qaacida caadiya intaynu ka sugano cid kale inayna bedesho cid kale wadanka inoo xoreyso cid kale inoo hanuuniso inaynu inagu isbedelin weeye qofka halkan fadhiya hadda dhageysanaya iyo qofka dhageysan doonaba inuu qofku naftiisa eego intuu ilaahay u jiro intuu wixii waajibaadka u jiro weeye qodobka saddexaad ee run ahaantii u baahan inuu qofku kolba la macaamilo wadcigu joogo inagoo joogna wadan aan muslim ahayn ayaynu ilaahay ku caabudi karnaa adigoo jooga wadankaagii muslimka ahaa ee maaragtay dalkaagii Soomaaliyana ilaahay subxaanahu wa ta'ala waad ku caabudi kartaa marka ittaqillaha haythama kunta way risaalada ugu dambaysa meel kasto joogto ilaahay kaga baq meel kasto joogto ilaahay kaga baq oo waxa aad sameynayso eeg dhaqanka aad leedahay iyo waxa aad sameynayso ilaahay subxaanahu wa ta'ala makaala raali yahay hadaad xukunka tahay iyo hadaad xaas tahayba salaanka gadaal hadal badan uma soo istaagin hadal intaan dhihi lahaa oo soo qorshaystay waxa yiri Sheekh Sacada yiri bulsho fiican haddii la helo ayaa dawlad fiican la helaa haddii bulsho fiican la helaa culummo fiican la helaa anigu waxaan hoosta ka xariiqayaa warka Sheekh Sacad sidaas ayuuna xaq u yahay maanta wadankan aynu ku noolnahay oo aan naqaano intiisa badan boqolkiiba 70 waxa qabta bulshada dawladdu sharciga go'aanka la dejisaa bis hadday baahi timaado iyaga gargaar ka dhiiba haddoo daad yimaado iyaga u shaqeeya si iska wax u qabsa haddii wax la dhisaayo iyaga dhisa maanta anigoo ka faa'iideysanayo munaasabadan waxaan leeyahay madaxweyne xun ma jiro bulshadu hadday fiicnaatana madaxweynuhu waa fiicnaana isbara inaad lacag aruurisiin inaad madaxweynaha wuxuu gaari waayay aad qabatiin isbara inaad ilmihiina hooyo haddaa tahay aabba tahaba
inaad ilmihiinna bartaan inay dowladda la shaqeeyaan wadaninimo inaad bartaan ilaahay ha u naxariisto adeerkay maxamed khayraa wuxuu yidhi maalin uu igu yimid waddankan Switzerland waxay waa xagee adeer meeshay Soomaaliya ka tegida ah markaasuu wuxuu ugu dhahay Soomaaliya maalintii ka nasiib ka nasaar lahaay ilaa hadda waxaa ku yar wadaniyadda hadday wadaniyiin ahaan lahaayeenna wax badan u hagaag lahaa warkaas waa war run ah wadaniyiin ma nihin waddanka ma dhisno baahida shacabka waxba kama qabanno marka waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynaya madaxweynehayga tobanaad mudane xasan sheekh maxamuud oon anigu weliba si shakhsiyan ah aan ula kulmay oo ah qof dabacsan oo tawaaduc badan oo aan ahayn qaliidal qalbi aan ahayn waxaan rajaynayaa haddii Allah awood la uu idmo inuu waddanka aslixin doono wixii uu qabyo uga tagana uu dhammaystiri doono insha Allah waa mahadsantihiin waana salaamantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والد مغلان كلا وعالكا كسلام يا المدة الصومالية قارها guddi qabanqaabada oo halkaan xafladda aadka u quruxda badan oo loogu taageerayo looguna ducaynayo madaxweynihii sideedaad ahna madaxweynihii sagaalaad ee qaranka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud Soomaaliya heshiis ah dunidooda heshiis ah waxaan rabaa halkaan waxaan ku istaagay wax kale maaha inuu noo soo xiro khudbadda ولكن أهلا في سوق سفارة الصومالية صالح مدني وحن جعلنا إنه صالح في سوق الوالد هذا ذكر إن نسوق الوسام وحن جعلنا إن نسوق سوق سفارة صالح مدني بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور محمد حسين مرتضى وزميل رئيس الشرطة الدبلوماسية هذا الدبلوماسية هاي مركز الدكتور أنا أقوم هذا اليوم مع سفارة الصومالية دكتور سويسرلاند أستراليا وحنا الله سجلنا أفضل waxaan ballaaran u soo jeedinaynaa qof walba oo ka qayb qaatay xafladatan aadka iyo aadka u quruxda badan ee lagu soo dhawaynayo madaxda cusub ee dalka waxaan salaan aad u ballaaran kaga wadnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan aad u rajaynayaa inaad salaada ayada ah naga doontaan salaan kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuma cusba bulshada Soomaaliyeed madaxweyne xasan wuxuu dalka ka soo shaqeeyay marxalad aad u adag wuxuu ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada oo ogsoonnahay inay tahay lafdhabarta ummad walba ee maanta horumar ku tallaabsata intaa kadib waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawow mar labaad sharaf ayay noo tahay inaad dalka mar labaad aad hogaamiso waadna mudan tahay sidoo kale mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa inaad ra'iisul wasaare u dooratay nin dhalinyaro ah aqoonteeda iyo khibraddeedana leh isla markaasna ah waayo arag daljoog ah waxaan ku leenahay mudane madaxweyne hambalyo waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare hambalyo aqalka sare labada guddoon ee aqalka sare waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa alla ka baryaynaa inuu mas-uuliyadda culus in la garab galo intaa kadib fariinta aan rabo inaan ii soo gudbino waxay tahay
annaga haddaan nahay dadka ku nool dibadda maxaana laga rabo oo na saaran maanta waxaana laga rabo oo na saaran waxay tahay inaan dowladnimada taageerno inaan ku taageerno xoogeen inaan ku taageerno xoolaheen inaan ku taageerno qowl iyo ficilba dowladnimada inaan ku taageerno maxaa yeelay waxaa ku jirto intaan la gaarin dalka waxaa ku jirta maslaxadeena ku jirto waxayna la soconnaa inteena dibadda ku nool qurbaha ku nool dhibaatadana haysta macaawis kaga sheekayn mayno inta gudaha joogtana waxba inkuma seegano waa dil waa qarax waa colaad waa abaar joogto ah waxaan ooga bixi karnaa arrimahaasoo dhanna inaan dowladnimadeenna xoojinno oon garab istaagna ooga bixi karnaa waxaadna ogsoonataan qof walbo annaga naga mid ah ee caawa meeshaan fadhiyo oo qaangaara oo caafimaadkiisa taam yahay waxaa saaran mas'uuliyad mas'uuliyaddu waxay kaa saaran tahay afkaaday kaa saaran tahay waxay kaa saaran tahay gacantaaday kaa saaran tahay tusaale ahaan social media aad u isticmaalnaa marka aad isticmaalaysid lifeka aad ku jirtid waxa aad ku hadlaysid waa mas'uuliyad marka aad fududaysanaysid laakiin kommentiyada dhiigala aad qoraysid waxa aad qoraysid waxay ogsanaata inay tahay mas'uuliyad waxaad ogaataa markaad meelaha la iskugu yimaado oo lagu sheekaysto mase muqaayadaha mase barxadaha marka aad joogto waxa aad ku hadlayso waa mas'uuliyad haddaad intaas wanaajiso adduunkaada iyo aakhiradaada laba waa ku hagaagayaan haddaad laakiin intaas aad ku ciyaarto oo social media live-kaad aflagaadi ay ku jirto oo barxadaha nimanka saaxiibada oo fikir ahaan waxay aad kala duwan tihiin aad habeen iyo maalin aad murmaysaan laga yaaba inaad habeenkaas mataqaanaa mar badan dhex maro ogsoonaw sharaftaada kuma jirto sharaftaada shakhsiga ah ilaasho dalkaada ilaalso saaxiibadaada ilaalso wadajirkiinna ilaalsada kadib ayaan waxaan gaaraynaa horumar guud ee dalka ah laakiin haddaad naftaada ka adkeen oo saaxiibka ah heshiis la ahayn oo walaasha ah heshiis la ahayn oo doodaada ay ku dhisan tahay wax yar oo cariiri ay ku dhisan tahay ogsoonaw naftaada ayaa khatar ku jirta u baahan in la badbaadiyo laakiin bulsho badbaadin karaysa waxaan rabaa joogu waa kulul yahay badar yarna cunno yarna waa cunnay xafladdan aad u qurux badnayd gabay yar ay gabar soomaaliyeed tirisay oo gubaaba ah oo aad ii soo jiitay gabayaa miihi laakiin dadka tiriyaan isku dayaa inaan mararka qaar oo kale aan dhaadhaajeen isku dayaa aan rabaa inaan hadalkii ugu soo gabagabeeyo gabadhaa waxay tidhi waxaa la yidhahdaa aamine cali waxay tidhi niyadii lagu doortay waxay la hadlaysaa markaa madax la doortay niyadii lagu doortay oon weliba duugoobin daadihii kalsoonida madaxdii wadarta kuu doortay waa baarlamaanka fursad dahabi baad haysataa daa'imkeen magane annakana farxad iyo damaashaad baan mudana madaxweyne kula damaashaadayna farxad iyo fursad dahabi baad haysataa daa'imkeen magane farxad iyo damaashaad baan kula damaashaayayna waad mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad hadalku ficlaan inuu see dhaaraado kulal badanaa jiro runtii caaw waxaa noo muuqda haddaan nahay safaaradda wejiye aad u qurux badan odayaal badan akhyaar badan oo wejigooda magacooda marar aan soo koobi karaynin mar labaad iyo mar saddexaad sidaa noo soo dhowayseen noo sharafteen mar labaad mar saddexaan kaga mahadnaqaynaa guddiga qabaqaabiyey inta xafladda ka soo qayb gashay inta xoolahooda ku bixisay meelaha loogu baahan yahay oo munaasab badan waxaa weeye wax lagu bixiyo weeye intaad meelo kale wax lagu bixin lahaa waa idin salaamaynaa mar labaad walaalkan xidig sabriya dhammaan akhyaarta mataqaana magacada soo koobi karo mid ayaa qof kasta magaciisa ku salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أنا ندين سلامية مناسبة السفر بدنا ينوغون علي خير تيدا ليرنا يا هرتي وعوض دانا يا دتك كسوق يبقى وهي مناسبة دان ورادي كلنا يا دمان دتك معنا أو هل كان إني منايا كقطبيان أو فرصة وهي إني قطبيان دمان وحاليا برشلة سويسرا يتمتلد نوغي مات أو مناسبة دان كسوق يبقى شكروح دبنا نقرأ هذا وما سنتي إنتان أولي وما قبلني ولا ليالو
waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso walaalkay cashar xasan oo meyd oo galay shaqo badanna qabtay oo nala qabanqaabiya munaasabadda oo waddanka turkiga jooga in ilaahay subxaana wa tacaala oo meydkaasna jannadii firdowsa ilaahay oo uga waraabiyo ee ay faamilkana sabr iyo iimaan oo allah ilaahay subxaana wa tacaala oo ka siiyo waxaana rabaa halkaan inaa hadiyo ku guddoonsiiyo shakhsiyaad dadaal dheeriya sameeyeen oo micnaha alle kuma sabtiya hawlkan ku sugan caawa waa mahadsantii walaalayaalo qaybtii gabdhaha iyo dhallinyarada ayaa bilaabanaysa waxay kadib hadiyadda kadib waxaana ku soo dhoweyn doonaa fanaaniinta walaalayaal hadiyadda ayaa bilaabanayso bashiir cabduqaadir bootaan ayaa hadiyaddaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud sawirkiisa madaxtooyada suran oo originaala aan ugu talagalnay munaasabadda ayaa wuxuu guddoonsiin doonaa qunsulka safaaradda soomaaliya hadiyadda labaad waxaan ugu talagalnay qaybta dumarka oo ayagana kaalin weyn ka geystaan munaasabadda sacdiye muxudiin xasan ayaa iskale hadiyadda labaad waxaana guddoonsiin doono xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya cabduqaadir barqadle hadiyadda saddexaad waxaan ugu talagalnay guddoomiyihii hore jaaliyadda suug master ciiltire waxaana guddoonsiin doono mudane cawil nuur bulshooy qaran bile irmada xasan sheekh dulqad badani irmada xasan sheekh abooga dhayu irmada xasan sheekh baraariyo nabad bulshadu heshee birmada xasan sheekh birmada xasan sheekh ku doorta baraaru birmada xasan sheekh ku siiya bogaadi birmada xasan sheekh war ku doorta baraaru birmada xasan sheekh ku siiya bogaadi birmada xasan sheekh